رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولوحا كدح لنا كتاب رياض الصالحين باب وجوب صيام رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. waxaan gelaynaa baabka lagu magacaabo soonka fadliga uu leeyahay, inuu waajib yahay ramadaanka in la soomo, fadliga uu leeyahay soonka iyo wixii markaa ku tacalluqee ku lug leh. qaala allahu tacaala, ilaaha sarreeye wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey kutiba waxaa la qoray calaykum korkiinoo laydinku waajib yeelay assiyaamu soon. soon ayaa korkiina lagu qoray oo lagu waajib yeelay kamaa sidii kutiba loogu waajib yeelay oo kale cala aladiina kuwii dushooda min qablikum adinka idinka horeeyey, ilaa qowlihi tacaalaa laga gaaro shahru ramadaan bisha ramadaan alladii waa tii unzila kii waayo la soo dejiyey fiihi gudihiisa alqur'aanu qur-aanka kariimka ah hudan xaal uu u yahay linnaasi dadka iyo wabayinaatin cadayn oo min alhudaa hanuunka xaggiisa la caddeeyo iyo walfurqaani furqaanka. faman shahida qofkii soo shaahida goorjoog ahaada, safar aan ku jirin, gabadhii qabta aan ahayn oo minkum adinka idinka mid ah ashahra bisha falyasumhu ha soomo. qofkeeda nabad iyo caafimaad alle ku soo gaarsiiyo, musaafirna uusan ahayn bisha ha soomo. waman kaana mariidan kii ah mid buka aw calaa safarin ama safar korkii ku taaganna fa ciddatun min ayaamin ukhar tiro kale inuu soo tiriyaa korkiisa ah. fa ciddatun ay fa calayhi cidda korkiisa tiro ayaa ahaatay oo min ayaamin ukhara maalmo kale uu soo tiriyo soo qadeeyo intii maalmood uu markaa ka tagtay. wa ama alaxaadiidu axaadiidta soonka ku soo aroortay faqad taqadamat waxay noogu soo hormartay fi lbaabi aladii qablahu baabkii ka horeeyey. wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi, qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi, qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi, kullu camalin camal dhammaantii ibni aadam uu samaysta lahu asagaa iskale. camal walboo aadam ilmihiisu ay sameeyeen ama ibni aadamka uu sameeyo asagaa iskale buu yidhi ila subxaana wa tacaala. waa xadiisul qudsiye, asagaa iskale ila siyaama soonka maahan. fa inahu lii soonka anaa iskale waana ajzii bihi anaana abaalgudahaya. soonka ilaahay tashriif ahaan buu isugu idaafeeyey, isugu tiibiyey. soonka ma ahayn inta kale asaa iskale. fa inahu lii soonka anuu ii sugnaaday, anaa leh. fa inahu lii markuu leeyahay waa cibaado ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa bes, qof kalna uusan ogan karin. inaad cuntood agtood afka tirtirato yaad dhihi kartaa ani waa soomanahay, waayo qofka ku dhihi kara ma soomi. laakiin markaad tukanaysa waa laguu jeedaa, markaad xajinaysa waa laguu jeedaa, markaad sadaqa bixinaysa waa lagu arkayaa. laakiin soonku waa cibaado sir ah, ilaahay ma ahayn, qof kale oo ogaan karaa markaa ma jiro. qof kale oo ogaan karaa markaa ma laha. fa inahu lii camal ii sugnaaday wa ana ajzi bihi anaana abaalgudayo. waasiyaamu junna soonku waa gaashaan. rasuulku wuxuu leeya soonku waa wiqaayo, qofku wuxuu ka gaashaaniyaa macaasida. waad aragtay qofkii aan eraysi karin amaan guursan karin ha soomabuu dhahay nabiga, idan macaasuu gaashaankaaga yahay ama wuxuu jinnikaaga yahay uu kaa gaashaaminayaa naarta. fa idaa kaana
haddii uu u ahaado yowmu sawmi axadikum axadkiin soonkiisa maalin falaa yarfuf yuusan rafad samaynin. rafadka waxaa la yidhahdaa waa kalaam faaxish ah, hadal xun yuusan ku hadlin. walaa yaskhab yuusan mabuucinin, suuqa yuusan ku qayqaylin. fa in saabahu hadduu caayo qofkii sooma axadun axad caayo aw qaatalahu ama uu la dagaalamana falyaqul ha dhaho innii saa'im, anigu saa'im baan ahay, ani waa soomanahay. innii saa'im, anigu saa'im baan ahay. waladii macbuudkii ayaan ku dhaartay nafsu muxammadin, nabi muxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee la khuluufu urka iyo karka ka soo baxa fami saa'imi, qofka saa'imkee sooman afkiisa atyabu cinda allaahi, alla agtiisa waa uga udgoon badan yahay min riixi lmiski, riixda miskiga ah. miskiga say u soo carafto waxaa ka caraf badan qofka saa'imka ah markuusan wax badan cunin. tagayurkii doorsoonka afkiisa ku baxa urka ka soo baxaya ayaa ka udgoon iyo caraf badan miskiga buu dhahay nebiga. lisaa'imi, qofka saa'imka ah ee soomanna farxataani, laba farxadood ayaa u sugnaatay. qofka saa'imkaa laba farxadood ayaa u sugan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa u sugan ninka saa'imka ah laba farxadood oo markaa uu ku farxo. lisaa'imi, saa'imka waxa uu leeyahay oo u sugnaaday farxataani, laba farxadoodoo yafraxuhuna uu ku farxo. idaa aftara markuu afurana farixa bifitrihi, afurkiisuu ku farxaya. sambuusihii iyo bariiskii iyo wixii ka mamnuuca ahaa ee ka xirnaa ayaa u furmaya. saa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam, qofka saa'imka ah ee sooman markuu afuro wuu farxayaa. waxaa afurka lagu tilmaamaa oo kale marka inta soonku u dhammaado ciiddii afurka la gaaro ee salaada ciidda loo dareerayo, quraacdiisii uu cunayana wuxuu gutay waajibkii alle, ajir badanna wuu helay, wax dhibaatana ma soo gaarin. wa idaa laqiya, iyo marka uu la kulmo rabbahu rabbigiina farixa bisawmihi, soonkiisuu ku farxayaa. muttafaqun calayhi. wahada lafdu riwaayat albukhaari. wa fii riwaaya lahu yatruku, wuxuu ka tegay tacaamahu cuntadiisa, wa sharaabahu cabitaankiisa, wa shahwatahu iyo shahwadiisiibaa bixi uu jeclaa, min ajli ana dartay ayuu uga tegay. saa darteed assiyaamu lii, soonka anaa iska leh, wa ana ajzi bihi, anaana abaalgudaaya. waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha, toolaabkeedaa la laalaabaa. wa fii riwaaya limuslim kullu camali bni aadam, camal kastoo bani aadamku uu sameeyo yudaacafu waa loo laalaabaa. alxasanatu, xasanaduna bicashri amhaaliha, toolaabkeedaa qofka loo abaalmariyaa ilaa 700 dicfin, ilaa 700 oo laalaab. qaala allahu tacaala, ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ila asawma, soonka maahan. fa inahu lii, anaa iskale soonka, wa ana ajzii bihi, anaana abaalkiisa gudaaya oo abaalbixinaya buu dhahay nebiga. yadacu, wuxuu ka tagaa qofka shahwatahu, shahwadiisa, wa tacaamahu, tacaamkiisa, min ajli ana dartay buu dhahay ilaahay. saa darteed lisaa'imi farxataani, qofka saa'imkaa laba farxadood ayuu leeyahay. farxatun be waa cinda fitrihi, waa afurkiisa agtiisa, waa marka qoraxda intay dhacdo, soonkii uu gutay, waajibkiisii uu gutay, rabbi ka raali noqday, xasanaad loo qoray, cuntadiina u furantay. iyo wa farxatun, farxad kale oo cinda liqaa'i rabbihi, rabbigii la kulankiisa ah. wala khuluufu, urka ka soo baxa qofka saa'imka ah fiihi dhexdiisa. wala khuluufu fiihi, afkiisa urka ka soo baxa atyabu, waa uga udgoon badan yahay cinda allaahi, alla agtiisa min riixi lmiski, riixda miskiga ah. riixda iyo carafta miskiga waa shayga uga carafta badan, waxaa ka caraf badan saa'imka afkiisa karka ka soo baxa. wa canhu ana rasuula allahi qaala, man anfaqa zawjayni, laba nooc qofkii ku bixiya fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa,
zawjeen marka la leeyahay waxaa loola jeedaa wax saaxiibkii la qarin ah, 2 faras, 2 baciir, 2 dameer, 2 dirham, cagaashaa 2 zawjeen qofkii ku bixiya ilaahay jidkiisa, naadiye waxaa looga dhawaaqaa oo looga naadiyaa min abwaabi iljannati, jannada albaabaheeda waxaa loo oranayaa yaa cabdallah, addoonkii ilaahayo, haadaa khayrun kan khayr waayo, khayr buu kuu yahay. faman kaana qofkii min ahli salaat ah, duciya waxaa looga yeeraa min baabi salaati, albaabka salaada waa taqasuskaa loola jeedaa. qofba waxbuu ku taqasusan yahay, qofaa waajibka tukadeen sunno tukan karin, oo laakiin isniin iyo khamiis iyo mar walba soomin, soonkaa loo fududeeyey. qofaa salaada loo fududeeyo caawa dhan buu taagnaan karaa, waajibka soonka miyay hal maalin kula jari karo. qofaa sadaqada u fududahay oo mar allaala mar kala dheexa la bixiyo, asaa safka hore ku jira, laakiin cibaadaadka kale waajibkuu ka sameeyo, laakiin waxyaabaha kale ku adag tahay. qof kasta wixii uu ku takhasuso albaabkeeduu ka galaa. qofkii reer salaad ah duciya min baabi salaad baa looga yeeraa. waman kaana min ahli ljihaadi, qofkii reer jihaad ah duciya min baabi ljihaadi, jihaadka albaabkiisaa looga wacaa. waman kaana min ahli siyaam, qofkii ahli siyaam ah oo soon badanna duciya min baabi rayaan, albaabka rayaan baa looga wacaa, waa albaabka soonkee. rayaan waxaa loogu bixiyaa cukanaanta, qofka markuusan aan haynin ee biyo uu ka dargo iyo raashin yaa rayaan iraada wuu cukan yahay. bacdana adduunka uu ku haraaday, aaqee lama haraadinayo, baabka rayaan buu ka galaa. waman kaana min ahli sadaqati, qofkii reer sadaqa ah duciya min baabi sadaqa looga yeeraa. qaala abubakar baa yiri radia allaahu canhu, biabii aabbahay ayaan anta adi kugu furanayaa, iyo innii hooyadayda, yaa rasuula allah, rasuulkii allow, maa calaa min korkiisa ma ahaanin duciya looga wacay min tilka alabwaabi, albaabada ayaga ah, min daruuratin, wax daruurii dhibaato korkiisa ma ahayn. fahal yudaca, ma loo wacayaa axadun axad yujra looga yeerahayo min tilka alabwaabi kulliha, albaabahaasoo dhan. ka sadaqada u wacanayso, ka soonka ugu wacanayo, ka jihaadka ugu wacanayo, ka mutaqaana salaadii u wacanaysa ma jiraa? qofkii hal xaba looga waco waa nasiibkii u dhacatay, laakiin ma jiraa qof albaabahoo dhan looga wacanayo? qaala nacam buu dhaa nebiga, haa, waarikii waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid tahay, inaad dadka adiga ka mid tahay. muttafaqun calayhi. wacan sahli bni sacad can ilnabiyi qaal, ina fi ljannati, jannada waxaa ka mid ah baaban albaab, yuqaalu lahu alrayaanu, baabkii rayaan baa lagu magacaabaa. waa albaabkii dharagsanaanta, yadkhulu minhu saa'imiin, saa'imiintaa ka gasha yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamo. baabu rayaan, dadka saa'imiintaa gelaysa, laa yadkhulu geli maayo minhu albaabkaa rayaan axadun axad oo gayrihim ayaga aan ahayn. yuqaalu waxaa loo oranayaa ayna saa'imiin, ay saa'imiintii, ayna saa'imiin, ay saa'imiintii, ayna saa'imiin, ay dadkii soomi jiray. fayaquumuuna way istaagayaan, laa yadkhulu minhu ka geli maayo xaggiisa axadun gayrahum, axad gayrkood ah. faidaa dakhaluu markay galaanna ugliqa waa la xirayaa, falam yadkhul minhu axadun, axad kaloo gelaya malaha. muttafaqun calayh. wacan abi saciid alqudri qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam, maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu sooma yowman maalin fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa ku soomay, ilaa baacada allah, ilaahay wuxuu uga fogeeyaa bidaalika alyowm, maalintaa wajhahu wejigiisa can naari, naarta xaggeeda 70 khariifan 70 sano. asaga wejigiisa iyo naarta waxay isku jirahayaan 70 sano in loo socdo oo kale ayaa la geeyaa. muttafaqun calayhi. wacan abi hurayra can ilnabiyi qaala, man saama ramadaana, qofkii ramadaan ka sooma iimaanan waxtisaaban, rumayn iyo ajir xisaabsashana u sooma, gufira lahu, waxaa loo dhaafaa maa taqadama, wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa. muttafaqun calayhi. wacanhu ana rasuula allahi qaal, idaa jaaa ramadaanku hadduu yimaado, futixat abwaabu ljannati, janno albaabaheedaa la furfuraa, wagulliqad waxaa la xirxiraa abwaabu naari, naarta albaabaheeda, wasufidat ashayaaiinu, shayaaiintana waa la katiimadeeyaa. muttafaqun calayhi.
shayaadiintana waa la silsiladaynayaa. wacanhu ana rasuula allahi qaal suumuu sooma liru'yatihi aragtida bisha ku sooma, wa aftiruu ku afura liru'yatihi aragtideedana ku afura. fain rabi haddii la qariyo, haddii la daboolo, macnaha wadna waaye waa khufiya min duun ay naxwu daruur iyo wixii lamida hadday idinka qarisa bishuu arki weysaan calaykum korkiina fa akmiluu dhammaystira oo u kaamil yeela ciddata shacbaanka tiradiisa 30 soddonka u buuxiya. muttafaqun calayhi. maanta markay shacbaan 29 tahay bisha waa la fiirina, waa macquul inay dhalato. hadday dhalatana waa la soomayo, hadday dhalan weysana shacbaankaa soddonka loo buuxinaya. macnuhu waa sidaa. wahada lafdu albukhaari. wa fii riwaaya fain humma haddii la qariyo oo la daboolo calaykum korkiina fasuumuu 30 yowman 30 maalmood sooma. soonkana saasaa la isticmaalayaa. oo bisha ramadaan maanta hadday 29 tahay bishaa la fiirinayaa. waa suuragal inay dhalato. hadday dhalan weyso ama daruur naga qarisee la arki waayo soddonkaa la buuxinaya. baabu lwuudi sabtinimo baabkeedii waaye ficlu lmacruufi macruufka samayntiisii waliktaari in la badsado min alkhayri khayrka fii shahri ramadaan. bisha ramadaan marka lagu jiro iyo ziyaadati min daalika arrintaa in la korsiiyo wanaagii macruufka iyo waxbixinta la badiyo fi lcashri alaakhiri tobanka dambe ee minhu ramadaanka ka mid ah. wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa buu yiri ajwaba annaas ummadda midka ugu saqisan ugu gacan furan buu ahaa. wa kaana ajwaba maa yakuunu fii ramadaan intuu u saqisan yahayna waa marka ramadaanka la joogo. xiina yalqaahu jibriil waa markuu jibriil la kulmo. wa kaana jibriil wuxuu ahaa yalqaahu mid nabi muxamed la kulmaa fii kulli laylatin habeen walba oo min ramadaana ramadaanka ka mid ah. fayudaarisuhu alqur'aan qur'aankay daarisayn jireen. marka wuxuu la darsi jiray, la akhrin jiray, ku subcin jiray waa qur'aanka. fala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil la kulmo ajwadu bilkhayri khayrka waa kaga degdeg badnaa. macnaha wuu la akhrin jiray. fayudaarisuhu alqur'aana qur'aankuu la akhrin jiray. fala rasuulu llaahi sal alla calayh wasalam xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil la kulmo ajwada bilkhayri khayrka wuu kaga degdeg badnaa min aruuxi lmursalati dabeesha lasoo diro. muttafaqun calayhi. can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa dakhala marka uu soo gala alcashru tobanka waa tobanka bisha ramadaanka u dambaysee axya leyl habeenkii wuu noolan jiray iyaaduu ku noolayn oo ayqada ahlahu ehelkiisiina wuu kicin jiray. ehelkiisiina markaa wuu toosin jiray. washadda almi'zara mi'zarka iyo guntigana wuu adkaysan jiray nabiga sal allau calayh wasalam. macnaha cibaadada u firfircoonan jiraa loola jeedaa. qole waxay dheen macaystuu xirana waxaa laga yadaa dumarkuu ka fogaanayay. baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii way can taqadumi ramadaana ramadaanka in lagala hormaro bisawmi soom bacda nisfi shacbaan nuskiisa marka la gaaro kadib ilaa liman wasanabu ilaa qof xiriirinayo maahana diina qabla wixii ka horeeyey. inuu shacbaankuu kuu ka soo bilaabay intaa wuu soomayey. nisfi shacbaan haddii la gaaro wuu soomi karaa. laakiin qof aan soo soomi jirin mar haddii nisfi shacbaan la gaaro soonku waa in la joojiyaa. ka soo socdaa loo diyaargaroobaya. aw amase waafaqa caadatan caado ay ku waafaqda maahane lahu asaga. haddii caado uu lahayn jiray inuu soomo oo ay ku soo aadana waa yadayaa. bian kaana caadatuhu caadadiisaa waxay ahayd sawma alithnain waalkhamiis inuu isniin khamiis soomo. fawaafaqa markaasay ku soo waafaqday. saa darteed ayaa ramadaanka markuu maalin ama 2 maalin ka dhiman yahay in la soomeeyo mamnuuc teelo kale. laakiin beri hadduu ramadaan saadan hadduu ramadaan yahay beritan ay khamiis tahay khamiisna ay kugu soo aaday waad soomaysaa. hal hore u soomi jirtay. وعن أبي هريرة عن النبي قال لا يتقدمن يوسن كلفر المرء أحدكم يبكين رمضان قد بصوم يوم ما لنسون كيس أو يومين أما لغنين إلا أن يكون إنه يهيمهن رجل من كان يصوم صومه سون كيس سون جري لكن يا مدد فليصم ذلك اليوم على انتهى الصوم. متفق عليه. حديث يسوء دبقا كي أرلهي
oo cibaadada aad samayn jirtay maalin ama laba maalin ka hor markay waad soomaysaa. wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tasuumuu ha soomihin qabla ramadaana ramadaanka hortii suumuu liru'yatihi aragtidiisa ku sooma wa aftiruu liru'yatihi bisha aragtidiisana ku afura fa in xaala haddii la teego oo la kala dhex galo oo idinka dhex gasho duunaha bisha sokadeeda hayaayatun daruur fa akmiluu 30 yowman 30 maalmood buuxiya 30 maalmood dhammaystira. rawaahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix. alghayaaya bilgayl اlmucjam wabilyaa lmusamaa min taxti اlmukarara waa ya la soo celceliyo hoosta laga dhibcaysan iyo waxaa la akhriya gayl la dhibaceeyey wahiya asaxaabatu daruurtaa markaa loola jeedaa. wacan abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri abi hurayra qaala rasuulu illaahi rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayh wasalam idaa baqiya hadduu haro nus oo min shacbaan falaa tasuumuu rasuumina. shacbaanka nus hadduu dhiman yahay joojiya soonka. rawaahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix. wacan abi lwakdaani wa cammaar bni yaasir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi man saama qofkii sooma alyowma maalinta alladii maalintaasoo yushaku fiihi lagu shakisan yahay way dhalatay ma dhalanin saayaayo mala arkin waa yowmu shaki baan yidhaahdaa faqad casaa abalqaasim buu ku caasiyey. abalqaasim ayuu ku caasiyey waa rasuulka. rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix. baabu maa yuqaalu cinda ru'yati اlhilaal bisha marka la arka maxaa la dhahaya. wacan طalxati bni cubaydillaah ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa ra'a alhilaala ilaasha hadduu arko bisha ramadaan udhalowgeeda qaala wuxuu oran jiray allaahuma ilaahayow ahilhu noogu dhali calaynaa korkeena bishaan min curi bilamni amni iyo waliimaan iyo waalsalaamati waalislaami rabbii wa rabbika allah rabbigay iyo rabbigaada waa ilaah dilay hilaalu rushdi rabbigay iyo rabbigaada waa allah hilaalu rushdi noqo iyo khayr. rawaahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanun. saasaa markaa la dhahayaa haddii bisha la arko habeenka ugu horaysaa bilow dhinacaan ayaana dhihi jirnay laakiin waxaana leeyahay hadda saahadhigine allaahuma ahilha calayna bilamni waaliimaani waasalaamati waalislaami sidaa dhaha rabbii wa rabbika allah hilaal rushdin wa khayrin sidaa markaa dhaha. waxaad fahmaysaa marka amniga faa'iidaya buu leeyahay deganaanta amniga. allaahuma ilaahayow noogu curi korkeena bilamni waaliimaani. iimaankii amnigaa laga hormariyey waayo iimaanka kuma tidaadaysan karo qofka hadduusan amni haysanin. saxuurtaanu geli doonaa. maxaa la cunaa? saxuurta. maxaa lagu saxuuranayaa? saxuurta. goornee la saxuuranayaa? saxuurta. baabu fadli saxuuri wa ta'khiirihi min almakhshati walfajri iyo casharada naga soo socda haddii rabbi idmo meesha inuu joogto bilahi tawfiiq allaahi subxaana wa tacaala.